aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta golaha shacabka ka hor sheegay in heshiis kasta oo madaxda maamul goboleedyada uu kula soo gaaro magaalada Dhuusamareeb oo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya dib ugu soo celin doono. Dhinaca kalena shirkii maanta loo ballansanaa ee Dhuusamareeb 3 ayaa u muuqda mid dib u dhacay walow la filayo in gelinka dambe ee maanta magaaladaasi ay gaaraan qaar kamid ah madaxda. wararkaasi waxaa si dhow ula socday wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo haatan si toos ah qadka magaalada Muqdisho ugu jira. Ibrahim, duhur wanaagsan marka hore bal nooga waran khudbadan uu madaxweynuhu maanta ka jeediyay golaha baarlamaanka ee Soomaaliya. khudbadaasi madaxweynuhu wuxuu ka jeediyay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo ay fadhiyeen 184 xildhibaan wuxuuna ahaa fadhi aan caadi ahayn maadaama madaxweynuhu codsaday in uu golaha la hadlo sidii uu sheegay markii uu Dhuusamareeb ka soo tagayay ay halkaasi heshiiska ku gaareen madaxda federaalka iyo kuwa gobolada. wuxuu sheegay in waxyaabihii halka ka soo baxay uu la iman doono golaha shacabka sida daraadeed wuxuu sheegay madaxweynuhu isagoo arrinta fulinaya in uu maanta hor yimid golaha wuxuuna ka warbixiyay wixii isaga iyo madaxda maamul goboleedyadu ay ku wada hadleen intii ay Dhuusamareeb joogeen oo uu sheegay in isaga iyo dawladuba ay ku adkeysanayeen in dadweynaha loo dhaweeyo dawladnimada isla markaana ay tahay in doorasho qof iyo cod ah la qabto. halka uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay iyana ku adkeysanayeen in la maro habkii doorashada ee 2016 ee ahayd doorashadii dadbanayd ee ergadu ay wax ku dooranaysay ama ergadu ay dooranaysay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. inkastoo ay dooduhu kala fogaayeen dowlad goboleedyada qaar ay aaminsanaayeen ayna aad ugu dhageen in doorashada hadda dhacaysa inuu noqdo kii 2016 ahaa oo dadbanaa, annaguna aan la tagnay meesha ana ku adkaysanay in doorashada loo baahan yahay inay ahaato doorashadii sharciga laga sameeyay horeyna loogu heshiiyey in la meel mariyo oo heshiiskii shalay la galay aan la jabinin. anigoo haddaba fulinaya hadalkii aan ka sheegay gunaanadkii shirkii Dhuusamareeb ee ahaa in qodobadii aan isla meel dhignay aan dib ugu soo celiyo golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dawladnimadeenna. wax walba waxay leeyihiin aasaas. sartaanan ku jirno haddii aysan jirin udubdhexaadkaan uusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo. marka dawladnimadeennu waa idinka, waa golaha shacabka weyn. golaha shacabka waa hay'adda ugu sarreysa ee matalaadda shacabka Soomaaliyeed oo 15 milyan ah oo aad tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada. go'aamadaad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxa aad rabtaan iyo magaalada Muqdisho aad joogtaan. go'aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu si dheer ama qoto dheer uga hadlay heshiiska ku salaysan doorashada cod iyo qofka ah. wuxuu sheegay in 2018 magaalada Baydhabo ay madaxda federaalka iyo kuwa goboladu ay ku heshiiyeen in ay dalka ka dhacdo 2020 doorasho qof iyo cod ah. wuxuu sheegay in golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka iyo golayaasha kale ee federaalkuba ay arintaasi si ay u dhaqan gasho ay sharciyadii loogu talagalay ansixiyeen. wuxuu sheegay in golaha shacabku ilaa 12 sharci uu ansixiyay oo ugu muhiimsanaayeen sharciga doorashooyinka kaas oo uu sheegay in ay tahay in doorashada lagu galo. wuxuu sheegay in shirkii beesha caalamka iyo Soomaalida lagu qabtay Belgium lagu bogaadiyay heshiiskii Baydhabo 2018 ahayd doorashada Soomaaliya. wuxuu sheegay in hadda la aadi doono Dhuusamareeb wax kasta oo Dhuusamareeb ka soo baxana ay go'aanka ugu dambeeya iska leeyihiin golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. sidaad la socotaan maanta oo bisha 15 ah waxaa lagu balansan yahay in la isugu noqdo oo la isugu tago magaalada Dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo, taasoo aan ku rajaweynahay inuu noqdo mid horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyadeena ee dalka iyo in awoodda loo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xildhibaanadooda iyo madaxda ay rabaan inay ku aaminaan hoggaanka dalka. madaxweynaha mas'uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan. waa isagoo weli ka shaqeynaya siyaasadda laakiin mar walbaba aasaas
aas waxa u ah sharciga iyo dastuurka in la ilaaliyo waxaan mar kale idin cadeynaya bacdama aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idin cadeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan hadduu Ilaahay yiraahdo khudbadda madaxweynuhu aad ayay u koobnayd oo dhowr daqiiqo oo kaliya ay ahayd wuxuuna sacab badan ka helay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee golaha fadhiyay oo ahayd tiradii ugu badnayd ee waayadan golaha soo fadhiisata waxayna ahaayeen 184 xildhibaan madaxweynuhu wuxuu maanta dhuusamareeb tegayaa isaga oo aanu ka horeyn ama aanu la socon ra'iisul wasaare maadaama ra'iisul wasaarihii shirkanka kii ka horeeyay ee dhuusamareeb ka dhacay ee dhuusamareeb 2 ka qayb galay Xasan Cali Khayre ay bishii hore shaqada ka cayriyeen baarlamaanka federaalka gaar ahaan golaha shacabka xasan